Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawaada janaalka youtube-ka insha allah maanta waxaan ka shaqayn doonaa waan cashir ku saabsan for networking waxaan ka shaqayn doonaa cashirkeenan oo la idhaha kobiga waa kan weeyaan marka waxaan eegi doonaa wireless kan ah oo markaan ku xidhno computerkeena iyo markaan wire xadhig ku xidhno labadaasaan eegi doonaa marka objective waxaan u baahannahay disidentify waxaan eegi doonaa siduu u shaqeynayaan eegi doonaa marka this the requirement waxay nooga baahan yihiin waxna wala akhrin maayo waqti badan bay naga qaadan doontaa marka waxa weeye waxaan u baahannahay one pc one computer baan u baahannahay marka computerka waa inuu ku xidhnaadaa xadhig uu ku xidhnaado internetka inoo keenaya ama tan oo kale haddii qolooyinkan internetka ku siisa xaafadaada ku barfaadhisa xadhig bay kugu xidhaan computerkaaga xadhigaas ayaa computerkaaga gala intuu galo routerka galo ayuu computerkaaga galaa ama waxaa jirta wireless hadda adduunku isbedelay oo inta badan wireless baa la isticmaalaa labada xadhig baan u baahnaan doonaa inuu computerkaagu lahaado magarata mid xadhig ah iyo mid wireless ah ayaa laabkan ku saabsan yahay marka this is the information that muhiimadda uu cashir ku saabsan yahay oon ka shaqayn doono marka here anigoo galaya the first part waxay dhaheen the first identify the work with the PC network interface oo ah marka sidaan samayn doonaa waxaan samayn doonaa waxay igu dhahan here you will identify the network types in the PC that you are using we will explore different way to instruct information about this network interface and how to activate and deactivate them marka waxaan samayn doonaa xadhiggan labada xadhig ee halkan aan ku sheegay as you can see the wire and wireless ayaan samayn doonaa waa activate baan ka dhigi doonaa and also we deactivate baan ka dhigi doonaa marka waxay dhaheen dislabka waxaan u baahannahay window waxaan u baahannahay pc that computer that uu ku jiro window 10 operating system even though kuwa kale lafteeda waa ku samayn kartaa okay step 1 ka ugu horeeyaan ka shaqaynaynaa ee halkan ku haynaa waxay dhaheen waxaad tagtaa bay yidhaaheen control panel tag marka waxaan samayn doonaa halkan baan ku dhufan doonaa halkan andan waxaan qori doonaa control markaan control qoro waka halkaas ay soo baxday marka click control baan ku dhufan doonaa and as you can see lamna as barbar dhigo hadda hadda waxaan joogaa controlkan joogaa marka waxay igu yidhaaheen in the this the my network and the internet waxay dhahay network and internet waxay gaayeen ku dhufo view network status as you can see waxay ku qoran view network status kaasaan ku dhufan doonaa kaasaan ku dhufan markaan kaa ku dhufto marka waxay igu yidhaaheen in the left band in the gacanteena midigtaa waxay dhaheen waxaad ku dhufataa change the adapt setting marka I have these three option waxay igu yidhaaheen ku dhufo change adapt setting I'll click that one marka kaa aan ku dhufto marka waxay soo baxay shaashadan screenka baa soo baxay marka inagoo eegayna let me haddana forward dhigo saad u ogaataan waxaan ka shaqaynayo okay shaashadnaba ay soo baxday aan waa halkan baan joognaa aan joognaa hadda marka waxay dhaheen here waxaad arkaysaa halkan waxaa ku qoran in the left band waan sameeyey and this tan waxa ay soo baxday all the neck this the ayaa ay soo baxay comba ay soo baxay kan ma waa wirelesskayga kan waxa weeye labadan ka shaqayn doono waa wirelesska iyo internet labadaas ka shaqayn doonaa kuwan waxay yihiin VMware machine aan isticmaalayo ayay yihiin marka labadan ma isticmaalno laakiin kaas iyo kaasaan isticmaalaya marka VPN ayay yidhaaheen halkan kuma haysto wax VPN cashiro kaloon ka shaqeeyo oo ah window operating system ayaan waxaan samayn doonaa cashiro waan recordiyey oo ah window operating system loo instaoliyo kaasaan markaa aan ka shaqayn doonaa VPN cashiradina soo socdaan samayn doonaa marka insha allah cashiradana waad eegi doontaan haddii alla nafti nagu sameeyo marka waan socon doonaa marka waxay igu yidhahan here step 2 waxay dhahaan work with your wireless network marka hadda kan baan ka shaqayn doonaa waxay igu yidhaaheen marka waxay locate the wireless network connection this is the wireless connection kayga aad arkaysaan waxay yidhaaheen if it disable right click and select enable right now it's enable weeyaan but let me make right click baan ku dhuftay marka right click your mouse ku dhufatid let me disable you click disable hadda as you can see is disable and you can see here internet also is disable oo internet ma shaqeynayo as you can see aad arkaysaan marka hadda waxaan samayn doonaa enable baan ka dhigi doonaa waxay dhahay enable to activate your wireless
marka haddana right click ku dhufo and then enable ku dhufo marka it activates markii hore it was deactivate marka I'll, and then it's I activated marka it's coming as you can see marka ku dhuftay waxay dhahayd if the wireless network connection is not currently connected as you can see it's not connected again marka waxay dhahayd right click again right click baan ku dhufan and waxay dhahayd select connect or disconnect marka waxaan odhan doonaa right click and then waxaan ku dhufan doonaa connect or disconnect and then marka waxa soo baxay as you can see here shaashadan baa ay soo baxday shaashadan baa ay soo baxday shaashadan waxa weeyi the wireless areadan deganahay dadka wirelesska haysta ee isticmaalaya weeyaan shaashadan marka waad hoos baad u wadi kartaa kaa doonaysa haddaad matalo kale haddaad qof istaqaanaan oo areadan waxaa odhanaysaa click baad siin kartaa markaan click siiyo connect baan odhan and then passwordka weydiinaya anigu qofkan ma aqaani oo marka passwordkiisa ma aqaani marka as you can see right now kaygii waa ka ugu sarreeya waa kan weeyaan marka waxay idhaaheen waan connecting doonaa I'll click it here and then waxaan odhan doonaa connect waan connecting doonaa as you can see it's connecting now you can see there's no calaamadii caasimada taalo halkan waad arkay uu connectinaya marka waxay igu yidhahdeen halkan waxay yidhahdeen right click again right baan ku dhufan doonaa click markaan ku dhufto waxay igu yidhahdeen click status I'll say status here I'll click status markaan status ka dhuftay waxa ay soo baxday this information baa ay soo baxday as you can see this screen kama ay soo baxay marka waxay igu yidhahdeen screenka marka waxay weydiiyeen saddex question buu halkan iga weydiiyey wuxuu yiri what is the service set identifier ssd oo waxay u taagan tahay set this is the waxa weeye qofka isticmaalaya ayuu yahay for this wireless marka qofka isticmaalaya halkan waa kan waa loo soo gaabiyey waxa weeye nasra aniga dhinacayga waxaan magacaasaan isticmaalaya nasra waxa kaloo ay weydiiyeen what is the speed of your wireless connection speedka wireless of your connection muxuu yahay my speed of wireless connection halka ku qortay speedku waxa weeye waxaan isticmaalayaa 1.2 gigabit per second ma isticmaalaya my speedkaygu wakaa speedkaan isticmaalaya marka waxay okay marka wuxuu igu hadda halkan aad arkaysaan click detail as you can see here detail baa ku qoran I'll click the detail kan ku dhufan markaan detail ku dhuftay waxa ay soo baxday shaashadan shaashada ay soo baxday marka question buu haddana weydiiyey what is the MAC address of your wireless NIC wuxuu igu what is the MAC address wuxuu yahay MAC addresskaaga oo marka MAC address waxay u taagan tahay here physical address this is the my MAC address of the my network wireless this is the my that's when question kale haddana weydiiyey wuxuu yiri do you have multiple IP version 4 DNS server listed if so why would multiple DNS server be listed wuxuu igu yiri ma haysataa DNS halkan lagu lifaaqay kuwa badan marka hadduu jiro waay maxaad u haysataa yes as you can see DNS as you can see IP version 4 DNS server I have two baan haystaa labaan haystaa the reason aan u haysto waxa weeye haddii the DNS domain name system hadduu mid fadhiisto the other one suu u qaado oo shaqada u sii wado uu respondiyo ayay the reason u hadduu mid respondin waayo ka kala suu u shaqeeyo marka I have labadaasaan haystaa marka waxay igu leeyahay halkan wuxuu igu yiri f waxay igu leeyahay open window command waxay igu leeyahay and type ipconfig marka waxaan samayn doonaa halkan ma tagi doonaa my computer ka starts and waxaan ku qori doonaa cmd oo u taagan command promote u taagan marka click baan siin markaan click siiyo waxa soo baxday shaashada ma soo baxday aan shaashada markay soo baxday waxay igu yiraahdeen as you can see halkan wuxuu igu yiri type ipconfig marka waxaan ku qori doonaa halkan ipconfig and then space baan siin aan calaamadda intaan siiyay aan odhan doonaa all as you can see halkan ku qoran tahay marka enter baan siin doonaa marka enter siiyo marka waxaan tegi doonaa this is my wireless marka I will find out my wireless connection and this is my wireless as you can see okay let me put this one here okay maybe I know you're right sama kala dhib yar okay waxaan samayn doonaa my wireless kan tegi doonaa okay let me put here okay sida halkan marka waxaan samayn doonaa this my wireless and click baan kan siin markaan kan siiyo as you can see hadda waxaan samaynaa one comparison one isbarbar dhigayna in isleeyihiin sida halkan ku qoran muxuu yidhi okay
status ib config okay halkan ma hadda maraya you can see it marka waxay notice the information display here the information halkan ka yaala iyo information halkan yaala waxa weeye waa the same information marka let's go aan samayno marka physical address kaygu haddaan this is my wireless kaygu weeyaan as you can see this is a wireless physical address it's here this is my physical address this is my physical address marka this and then waa kan waxuu ku bilaabmayaa 1c waxaana u dambaysa ae and then hyphen and 78 as you can see they are the same marka ib version 4 aan isticmaalayo ib version 4 haddaan ku tuso halkan aan isticmaalayo so this is my wireless okay ib version 4 aan isticmaalayo it's okay here as you can see it's what 10.00.31 and you can see 10.00.31 and subnet mask and isticmaalayo here is 255.255.255 and subnet mask 2555 and then lease obtain waqtigaan helay oo waxa weeye January 8 oo ah iyo markuu iga dhacayo lease expired as you can see lease obtain waa January 8 and halkan maxaa ku qoran the expired date kana waa ku qoran tahay lease expired halkan baa ku qoran ay ku qoran tahay marka lease expire okay waxa kaloon eegi doonaa halkan waxa ku qoran the DNS as you can see DNS service here this is the default gateway first of all this is the default gateway 10.0.1 and this is the default gateway and then let me find out the last one the DNS server as you can see the DNS server here let me go to DNS server here DNS server as you can see DNS server let me find out DNS server wireless okay adugu in general informationka DNS server hal wanaagsan DNS server waa kana arkaysaan maxaa ku qoran this all the DNS server the IB version 6 and IB version 4 this IB version 4 is here what this two aad arkaysid 64 and 64 and haddaan halkan ku tuso waata 6464 and waxaan u dambaysaa 208 28 and 198 marka this is that way weeyaan as you can see marka wuxuu yidhi close the command marka kan waan iska xidhi doonaa oo waan iska dhigi hoos baan u dhigi doonaa marka wuxuu igu yidhi halkan and also waxa halkan ku qoran okay and also waa kan waan xidhi doonaa kaan waan xidhi doonaa and halkan waxa ku qoran waan xidhay marka waxa igu yidhahdeen halkan waxa igu yidhahdeen close and wuxuu igu yidhi this is the wireless wuxuu click the wireless properties marka hiya markii hore halkan baan ku dhufanay hadda waxaan ku dhufan doonaa wireless properties I'll click halkaasaan ku dhufan markii halkan ku dhuftay wuxuu igu yidhi in the wireless network properties window click the security this is the security marka click siyo marka hadhow toole halkan waxa ku qoran ma passwordka ku qoran haddaan show aan ku dhufto halka passwordkii wuu soo bixi doonaa marka haddaad matalan passwordkaaga kula ilowday marka waxaad samayn doontaa processor hadda samayn oo kale marka halkaasaad click odhan anda marka passwordkaagaa soo bixi doona marka halkaas ka waan iska xidhi doonaa waan xidhay ana waxay igu yidhaha halkan waxay dhahay close the wireless network andan kana waan xidhi doonaa andan waan xidhay andan halkan waxay dhaheen as you can see waxay dhaheen select the right and the wireless this is my wireless as you can see this is my wireless okay asbar dhigay labada okay let me isbar dhigo okay waan isbar dhigay marka waxay dhaheen halka aad arkaysaan wuxuu yidhi put for wireless and right marka this is my wireless I will right click it and then say good dhaheen waxay dhaheen wuxuu say good dhaheen right click and then waxay dhaheen I will disconnect I will click this one connect or disconnected and then markaan saara waxa soo baxday screenkan as you can see here kule a pop up window should appear into the this waa soo baxday and this adan waad wadi kartaa saa hore nagu sheegay marka this waxa weeye areadayda dadkan internet ku haysta weeyaan haddii uu kaaga yahay oo midi ku jiro waad click waad ku dhufanaysaa maraad ku dhufatid marka waxaad siin doontaa passwordkaaga ku qori doontaa
oo ah aad ku qori doontaa marka so far anigu already waan ku xidhanahay marka inta waan dhaafi doonaa and then waxaan u gudbi doonaa qaybtan waxay igu dhahaan qayb 3 waxay igu dhahaan step 3 work with your wire hadda waxaan ka shaqayn doonaa xadhig wire aan haystaa oo kana marka kan hadda wireless waan ka shaqaynay kan baan ka shaqayn doonaa ogow hadda wireless baan ka shaqaynay as you can see it has IP address kaas ma arkaysaa this is the my wireless weeyaan laakiin hadhow tolo markaan ku xidho the physical oo internet ku xidho waxay noqon doontaa two different IP address bay ka yeelan doonaa hadda matalo kale haddaan ku tusa halkan this so that waa kan waad arkaysaa as you can see and then if you my IP version as you can see here my IP version is waxa weeye 10.0.0.31 wad markaan kan ku xidho waxaad arki doontaa different waxay noqon doontaan IP address ka labada haddaan labada wada shaqeeya two different IP address weyn ka waxa fiican kolba midaad isticmaashid ma garatay okay marka waxaan samayn doonaa sida halka inagu xusan waxay dhaaheen connect to marka waxaan samayn doonaa I will connect my internet as you can see markaan my internet is here right now it's right now as you can see it it's here as you can see it what I will do it I will click it I'll click here and then I'll say stats I'll click here and the stats waxa soo baxday as you can see here this is my stats weeyaan and then markaan stats and waxaan ku dhufan doonaa detail this is the detail when I say detail as you can see is a different markaan isticmaalay IP markaan isticmaalay wireless it was my physical address was waxa u dambeysay 78 baa u dambeysay oo haddaan ku tuso this waa kan waxa u dambeysay 78 baa u dambeysay wada halkan markaan isticmaalay internet kan isticmaalayo waxa weeye waxa u dambeysay waad arkaysaa kan wuxuu ahaa my wireless buu ahaa wireless wuxuu ahaa IP version 4 wuxuu ahaa 10.0.031 but haddaan halkan ku tuso my IP version 4 it's here as you see 10.0.20 it's a totally different some not mask the same and then all the other rest it looks like waa isku eg yihiin marka that's weeyaan marka inagoo sii raacayna waxay dhaaheen internet baan hadda waxaan furi doonaa mid kale furi doonaa oo waxaan odhan doonaa comment waxaan odhan doonaa IP config waan odhan doonaa and let's go and compile garayno marka hadda waxaan markii hore wireless kan joogay marka hadda waxaan tegi doonaa not this is wireless hadda waxaan tegi doonaa internet baan tegi doonaa the internet this is my internet as you can see marka I'm doing comparison marka if you see look this one that elected and this one that elected are the same one 14 but all the 14 and 9b as you can see and then my IP version is waxaan ku qoran tahay my IP version it's here and my IP version as you can see it's here and some not mask are the same and then the default gateway is here and the default gateway is here and then the DNS server it's the reason we have to also we mentioned before can also all the information that as you can see here that this waa qof kii sameeyay information ku yaala marka halkan waxay dhaaheen as you can see waxaan samayn doonaa a little bit more information waxay dhaaheen in part 2 you will be using network icon in your system tree marka halkan baan ka tegi doonaa to determine and control the here step use the network icon this is the network icon marka waxaan click the system and we'll click here and then I click it here this is my wireless all the stuff the bob came out as you can see it okay marka waxay dhahan here as you can see click the network okay let me say I'll click here click the network let me go here and I'll go here let me scatter kan aan xidho okay okay waxay dhahan click the network and okay and then click waxay dhahan change adapter I'll go to change adapters here I click the change adapter it was the same process okay and then in the network connection window right click the Wi-Fi I'll right click the Wi-Fi and then waxay dhahan disable I disable it as you can see it's disable my Wi-Fi now and then waxay dhahan also examine your network and now I want to examine my network markaan click kan siiyo I want to find out marka so far you can see hadda ma arkaysid my wireless my neighborhood or my wireless because I disable it disable baan ka dhigay
okay, you cannot see it as you can see it. Marka waxay dhahdeen hadda waxaan I examined waxay dhahdeen also disable my this one also internetkayna I will disable it. As I disable and also I will exam, and then I click it here, and you can see I cannot see anything. Both my internet and the wireless, both of them are labadiiba halkan ma jiraan. Marka as you can see hadda waxay dhahdeen identify the network problem. Marka waxaan eegi doonaa what's the network problem. Okay, connection window, okay. Both are disabled as you can see it, and then we will do troubleshoot baan samayn doonaa sida halkan ku qoran. Marka waxaan samayn doonaa I'll go back to here, and then I'll click here. I'll click here, troubleshoot. What was the problem? Marka wuxuu siiyey this information wuxuu siiyey information wuxuu recommended troubleshooting programs run automatically and then notify me. Marka all this information baa jirta uu siiyey waxaan oran kan baa oran doonaa don't notify me oo waxaan oran doonaa notify me or ask me before you run or don't run anyway baa oran doonaa. Marka let me say notify ama ku dhufta kaas. Marka kaa ku dhufto waxaan marka kan baa oran doonaa marka click siiyo marka waxaa soo baxday waxaa meesha baxday marka waxaan doonaa network and internet run. Markaan click aan siiyo marka shaashadan baa soo baxday wuxuu igu yiri as you can see the internet network adapter is disabled, and let me show you we disable both this one and this one are disabled, and he told me marka waxaan oran doonaa enable the network baan oran doonaa, and I will say click halkan oran doonaa enable the adapter. Markaan click siiyo marka I hope waxaan rajeynayaa in isagu disable ka dhigo oo kaas as you can see it troubleshoot sometimes do troubleshooting waayo adu inta halka timaadid weeyaan oo marka aad samaysid. Marka so far it came back to here as you can see it. Okay, and okay, marka the question ka u dambeeyay weydiiyeen waxay u leeyahay if troubleshooting did not enable on your PC network, then you should do manually. Adaa marka haduu samayn waayo adaa manual samayn, but in my case I did it and it worked for me. Is that way. And the question here, the last question, the reflection question: why would you activate more than one NIC on your PC? Marka waxay dhahaan maxaad u haysataa one computer kaliya aad ugu haystaa money aad ugu haystaa oo sidan oo kala as you can see I have money and NIC baan haystaa. Maxaad ugu haystaa? The reason aan ugu haystaa way haddii one of them uu shaqayn waayo sida ka kale uu igu shaqeeyo saasaan ugu haystaa. Waayo intaasaan maanta ku joojin doonaa cashirkeena insha Allah for the networking waxa kale cashiro kale insha Allah noo soo socda oo for the networking ah. Ka any comment oo ku saabsan cashadan ku saabsan halka hoose ku qora aan ila wadaaga insha Allah. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaykum wa rahmatullahi